Alaabtan hadaa wajiga marsatid isbuuciiba 2 maalin wajigaada waad ka dareemaysaa. Waa alaab yar oo fudud oo wajiga cadeynayso, oo wajiga daalka, qayraada, wasaqda ka dejinayso, sidoo kalena wajiga kobcinayso. Waa alaab hada dheelitiran oo dhan walba ka dhameystiran. Labada wajina waa loo isticmaali karaa, wajiga saliida leh iyo wajiga qalalan labada waa la marsan karaa. Marka alaabtan fudud ayaa maanta kasoo tuurnayna. Maxaa ka fiican alaab najuraala oo maasha Allah hada waxyaabo fudud gurigaaga aad ka heli kartid wajigaaga ku cadeyso. Wax la siisan kara malahan hada insha Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Asxaabta ku xiran Najax Qurxinta soo dhawaada walaalahayga meel walba joogtiin. Dhammaantiin ku soo dhawaada channelkeena Najax Qurxinta uga barateen isqurxinta dabiiciga. Waa walaashina Denisida cashar kale cusub ayaa walaalahayga maanta inoo wada sida title-ka video ku soo aragteen qaybta ugu horeysa video-ga aad ku soo daawateen. Wixii wara wixii hadala qaybta ugu horeysa video-ga ayaan ku soo koobay walaalahayga. Marka warka iyo hadalka in kugu badinaayo hada alaabtan dheelitiranka oo wajiga lagu dayactirayo. Wajigana hada maasha Allah ka dhigayso ayaan ka soo tuuranaynaa walaalahayga insha Allah. Video-ga soo socdo igala bogta waxyaabaha aynu ka hagaajisanayno iyo sidaan u sameysanayno. Waan ku mahadsantiin walaalahayga sida quruxda badan mar walba ila socotiin. Bismillah, alaabteeni ayaan sameysanaynaa walaalahayga. Wajiga hada inoo cadeynaysa. Marka hore waxaan soo qaatay weel yar oo alaabtaan isku la dardarsano. Sidoo kale waxa kale u baahan tahay marka koowaad shumburo ayaa u baahan tahay. Qaando hafkeed oo shumbura ayaan ku shubo walaalahayga. Weelka shumburahana waa ina tusinayaa. Waa kana alaabtan caaga ku jirta waayo walaalahayga shumburaha. Waxaana ka soo iibiyay meelaha xaruuda iyo qasalka lagu gado. Halkaas ayaa ka helaysiin walaalahayga. Marka shumburo ayaa marka hore u baahan tahay. Intaas ina ila fahanteen ayaan rajeynayaa ahbaabi. Sidoo kale waxaan kale ku darayaa walaalahayga qaando hafkeed oo bariis shiidan ayaan ku daray. Waa bariis cade shiidan waayo walaalahayga. Bariiskana waa kana asagana waxaa lagu iibshaa meesha aan inii sheegay oo haruuda iyo qasalka lagu iibsho suuqa. Qaybta haruuda iyo qasalka lagu gado ayaa ka helaysiin bariiska iyo shumburaha waxoo dhan walaalahayga. Hadaa rabtidna waxaa sameynaysaa bariiskaaga caadiga oo guriga ku yaal ayaa shiidanaysaa. sidaas oo kale ayuu ku noqonayaa. Sidoo kale walaalahayga waxaan kale ku daray hal qaando yoogada ayaan ku daray. Waa yoogadka plain-ka oo vaniilada walaalahayga. Waana kana yoogadkan ayaan ani isticmaalaya insha Allah. Midkan xoogaa sonkor yar uu leeyahay asagoo sonkor la'aan hadaa heshidna kaba sii fiican. Marka waa kaasa walaalahayga. Intii alaab aan isku soo dardarsanay ayaan isku qasayaa oo is dhex gelinayaa. Alaabtan walaalahayga inaba caadi maahan. Mana ahan wax la weyn karo. Waa wax yar oo fudud hada gurigaaga aad ka heli kartid maasha Allah. Maxaa ka fiican wixii gurigaaga ku yaalo isku qurxi oo wajigaaga ku dayactir oo wajigaaga ku cadeyso. Waa maasha Allah meel laga helo malahan walaalahayga. Alaabtii hada markii aan soo qasay oo is soo dhex geliyay sidaas ayay inoogu soo baxday. Kareem camal ayay inoo noqotay walaalahayga. Marka haatan alaabteeni waa inoo diyaar. Haatan oo kaliya waxa u baahan tahay in jag la isku siiyo. Marka alaabtan sida isticmaal waxaa sameynaysaa marka hore wajiga ayaad iska soo dhaqaysaa oo iska soo nadiifinaysaa. Ka bacdina alaabtan ayaa wajiga marsanaysaa oo saaranaysaa. Waxaa ku joogaysaa 15 daqiiqo ilaa 20 daqiiqo sida adiga aad jaanis u heli kartid. Markay kugu qalashana waad iska dhaqaysaa wajiga waad iska nadiifinaysaa. maasha Allah quruxdaada aad iska yaabi doontid hada hubaal muraayada kama hor dhamaan doontid. Wixii wajiga markaas wasaqo daal qayraad mugdi madow wuxuu dhan halkaas mar ayay ka dejinaysaa. Wajigana nadiif ayay ka dhigaysaa. Wajigana mar haddii daalka iyo qayraada iyo wasaqda laga dejiyo sidaas ayuu ku cadiyaa. wax uu cadaan oo ka baryaay malahan. wiigiina waxaa waaye labadaada mar ayaad ku tuuranaysaa isbuuc kasto. Hadaa rabtidna maalin dhaafna waa marsan kartaa, maalin kasta waa marsan kartaa. Adiga iyo dadaalkaaga ayay ku xiran tahay iyo sida hadba hada isku dayactiraysid insha Allah. Marka walaalahayga ila soo tijaabiya oo igala faa'iideysta mar walbana hada wajiga iyo jirka waxyaabaha dabiiciga in lagu dhaqo oo lagu cadeeyo wax u dhaamo walaalahayga waa la waayay. Marka isku day insha Allah mar walba waxyaabo dabiici inaad jirkiina ku qurxisatiin oo ku dhaqatiin oo ku cadeysatiin. Alaabtan hada ayalsanin hada walaalahayga 3 shay waxaan ka sameysana maasha Allah oo cajiib ah oo 3daba ay weytin leeyihiin. 3 shay oo alaabtan aan ka hagaajisana walaalahayga. Koow waxaa kamid ah bariiska ayaa kamid ah. Bariiskan hada xagga wajiga ama xagga jirka isqurxinta marnaba lagu magaaro weytin fiican wuu leeyahay walaalahayga. Wajiga wuu cadeynaya wuu dhaqaya.
sidoo kalena wejiga wuu kobciyaa bariiska fitamiinna wuu siiyaa walaalahayga. Shayga labaad oo alaabtan aan ka hagaajisano waxa waaye waa yoogad waaye. Yoogadkan hadda waa iska taqaanin asagana waa maasha Allah wejiga iyo jirka wuu ka dhigaa meel alaala markaas meeshii amarsatid waad ka dareemaysaa oo asagana hadda wuu kobcinaya wejiga iyo jirkaba. Yoogadka wuu cadeeyaa walaalahayga, quruxna wuu ka dhigaa wuuna bilaa. sidoo kale shayga saddexaad oo alaabtan aan ka hagaajisano waxa waaye waa shumburo waaye. Shumburaha asagana hadda maasha Allah ayuu ka dhigaa wejiga iyo jirkaba meel alaala meeshii markaas amarsatid shumburaha waad ka dareemaysaa. Wejiga shumburaha wasaqda ayuu ka dejiyaa walaalahayga ama madowga, jactadka, daalka, qajiraada waxaasoo dhan wuu ka kelin gareynaya wejigana wuu taagaya quruxna wuu ka dhigaa. Hadda maasha Allah lagama sheekan karo alaabtan hadda ini dhaho waa in kaga faaloonaya oo hal ayaan u dul istaagaya. Videoga ayaa inagu dheeraanaya walaalahayga. Marka insha Allah intaasoo shay meel iskugu tagta hadda sheena laga baaqan kara maaha walaalahayga. Markii la soo tijaabiyo uga faa'iideysta hadda waa inoo kulati dambe oo xiiso leh aniga inii sido video kale cusub walaalahayga. Videogeeni maantana intaas ayaan kusoo afmeeraynaa insha Allah. Videogana sii share gareeya si ay walaalo badan uga faa'iideystaan. Channelka haddii aad ku cusub tahayna soo dhawow minankaaga waaye. Ku soo dhawow channelka inoo subscribe garee inoo like garee. Haddii aad hore noola joogtana waad ku mahadsan tahay mar walba sida quruxda badan aad inoola joogtid. Videoga haddii aad daawatidna hadda like-ta hanaga ilaawin. Like-ta waa dhiirigelinteena koowaad. adigana like-ta lacag kaama gadno annagana dhiirigelin ayay inoo tahay. Marka videoga haddii aad daawatid marnaba hadda like-ta hanala dhaafin insha Allah.